abuurtay runtii qofka bini'aadamka mar walba ma dhamaystirno cillad way ku imaan kartaa qaladaad wuu geli karaa balse wanaagga marka uu yahay indhaha wax ku aragtid dhagaha wax ku maqashid iyo qalbiga wax ku xurmisid naftaadu waxay bilaabaysaa inay qaado dariiq toosan waxay dareemaysaa waa salaamintii saaxiibayaal sida idiin muuqata waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay inaan xusayo 3 sano kadib muuqaalka ugu horeeyay aan soo duubay kaasoo horseed u ahaa muuqaalo badan oo cajiib ah oo aad ka daawateen page-kan. haddaba walaalayaal aan isweydiino waxa eygaasi yar uu garto maxaan inaga u garan laanahay kuwa badan oo qalbigoodu dahalaystay markay muuqaalkan camal arkaan waa iska indha tiraan waa kuwa aan warba u hayn inuu jiro waajib uu Alle ina saaray oo la inaga sugayo inaan fulino xaalad kasta oo aan ku sugannahay Allahu akbar walaalkan qiimaha badan inuu salaada isu diyaariyo waxay ku qaadataa 1 saac sababtoo ah marka uu waa wax iska cad inta xubin jirka kamid ah ay dhaqaaqayso weli noloshaada rajo ayay leedahay. saaxiibayaal sida caadiga ahba shaqo walba salka ayaa laga soo bilaabaa waxay u baahan tahay dhabar adeeg iyo dadaal fara badan runtii isma lahayn keliga ayaad hawshan aad wadid miro dhal aad iyo aad u badan ka keeni doontaa balse markii aan arkay Soomaalida sida ay wanaag u jecel yihiin runtii waxa ii cadaatay in maaragtay ay dadka Soomaaliyeed yihiin dad wanaaga aad iyo aad u taageera sida idin muuqata maanta numberka aan maray waad u jeedaan waxaan rajeynayaa insha Allah meel ka sii badan in aad maaragtay gaarsiiyo muhiimadda ugu weyn ma ahan in malaayiin qofood ay kugu xiran yihiin muhiimadda waxay tahay in aad wax macno leh uga tagtid bulshada in qofka marka uu ku arko oo isdhaho alla ilaahay qofkan waxa waaye qof aan wax ka faa'iideysan karo laakiin dad badan oo waxa jiro dadka markii ay aad iyo aad ugu xiran yihiin u haystaan qof ay dadka wada jecel yihiin laakiin dadka waqtiga ayay kaliya isaga ka luminayaan laakiin biri marka aad geeriyooto hawsha qiimaha badneed ee aad qabatay ayaa cadeyn doonta meesha aad u socotid dabcan waxaan ula jeedaa halka loo wada dambeyn doono haddaad rabtid inaan casarkii imaado aan xoolaha iyo guriga iska iibino ama si kale isu dhaafino lahaanta iyo la'aantuba waa imtixaan mid walba qofkii xambaari kara oo u adkaysan kara ayaa ka gudbi kara 4 ratigii xubnihiisa la iska cunayay ee aan danta ka lahayn waa deeqsi xoolihiisa dadkoo dhan baa cuna dhibna uma arko naftiisana ugama baqaylo dadkana ugama baqaylo 5 gabadhii gadaal u cararaysay waa adduunyo weligaa daba orod gaari maysid ayaa maxkamadda ka hor sheegay hadal ka yaabiya shacabweynihii Soomaaliyeed isagoo yiri in ka badan 25 sano waxaan Soomaaliya ka wadnay dhibaatooyin ka halis badnaa kuwa idin muuqda waxaan gumaadnay maatadiina waa si dabar go'i weyseen waxaan xaalufin ku wadnay khayraadkiina wayse dhammaan waayeen 3 qaab walba ayaan idin kala qaybinay laakiin Soomaalinimada waan ka tiri weynay qulubtiina 4 waxaan adeegsanay kuwiina calooshoodu shaqaystayaasha ahaa balse waxaa ka awood batay kuwa wadaniyaasha ah 5 waan idin qaxinay waxaase la aamini karin inaydan weligiin dib u dhiska iyo horumarka dalkiina ka quusan saaxiibada qiimaha badanoo waa walaalkiin Axmed Cabdikariim waaye arag oo idin leh kuwaasi waxay ahaayeen qaybo kamid ah muuqaaladii aan idin la wadaagay waxaan aad ugu faraxsanahay inaad page-kan kaliya aad ka daawateen muuqaalo wanaagsan oo laga reebay xumaanta malaayiin baa ila soo xiriirtay asxaabtii si uun talo iyo tusaale iigu biiriyayna waan u mahadnaqayaa lama soo koobi karo waxyaabihii aan ka faa'iiday intaan maamulayay page-kan waxaan idinka codsanayaa qof kasto inuu ii soo qoro hadday macquul tahay magaciisa meesha uu joogo markii ugu horeysay ee uu page-kan ku soo biirayay 1 iyo 2 waxyaabihii uu ka kororsaday waxaan u mahadcelinayaa dhammaan asxaabtayda inta wanaaga xushmada iyo kalgacaylka qalbiga igu haysa ka badan aniga ugu haya muuqaalkanna inoo sheer gareeya